Faadumo Aadan Cali waa hooyo danyar ah oo ku nool magaalada Baydhabo. Baraha bulshada ayay ka soo muuqatay iyadoo ka shaqaynaysa xirfadda dhismaha, gacan qaad iyo tacaddi kalena kala kulmaysa mid ka mid ah dadka ay hooyadan dhismaha kala shaqaynaysay. Muuqaalkeeda waxa uu aad u gilgilay qalbiyada dadka Soomaaliyeed, waxayna ka wada xumaadeen duruufta nololeed ee ay ku shaqaynaysay iyo dilka loogu sii darayo. Maalmo kadib dadkii dhibsaday arrintan waxa ay muuqaal farxad leh ka heleen shirkadda Dahabshiil Group oo noqotay shirkaddii ugu horreysay ee hooyadan la qaybsata duruufteeda, waxayna shirkaddu guddoonsiisay cadad lacageed oo ay ku maareyn karto nolosha qoyskeeda. Hooyo Faadumo Aadan Cali ayaa ka hadashay dareenkeeda iyadoo mahadcelin ballaaran u jeedisay shirkadda Soomaaliyeed ee Dahabshiil Group oo noqotay shirkaddii ugu horreysay ee caawisa. laagdan iseedi mahadaan ku hay shirkadda Dahabshiil mahadaan ku hay Baydhabo intii Cismaan Cabdinuur Cabdiraxmaan maamul ku-xigeenka xawaalada Dahabshiil ee Koonfur Galbeed iyo Muxiidiin Xuseen Isaaq oo ah madaxa isku xirka xarumaha Somtel ee Bay iyo Bakool ayaa sheegay in Dahabshiil Group ay markasta diyaar u tahay ka jawaabidda qaylada bulshada ka soo yeerta iyo garab istaagga dadka danyarta ah. sida la ogsoon yahay buuha meediyaha gali oo mayl ra'iisul duruufta ku muuqati iyo shirkadda Hangurmati maamadii ahay maama Faadumo Aadan Cali يجيك ما نتلقى لي شركة دابشيل جروب إني قدون سيد داق لعقد أنت ما ينقوم هالنجانة مركن كوت إلهي سبحانه وتعالى أو إلهي أمتنا ما يبوارد هذا إنك هانك داقات ما يبواه إلهي وافجي يا من مركون ما هالنجانة أنت أسكدي ما يبواه ما ملك دابشيل جروب جودهان سوماليا yang mahandagan oo ku danqadi oo meel raayis garwaaqsidi in maamada in sameey wala ka shoobin garaysata oo meel raayis tukaan yar liindis shalay yadal muxsiniin andasan tukaan kasmay buu wala ka balaawta yamay buu aan ka talagalay shirkadda Dahabshiil Group marka madaxda shirkadda Dahabshiil Group yang mahandagan si guud ahaan aan ka horeeyay buu milkiilaha shirkadda iyo maamulaha guud Dahabshiil Group Abdirashiid Maxamed Saciid Ducaale oo may buu hal gorodan in maamadaas tukaankaas yar leen furo saas darteed intaas kadib may buu maam Faadumo geek may bagodoonsiyo hayne lacag may buu sida boor ku muuqata $5,000 shantaas ku may buu ardeed shantaas ku san arago haytan insha Allah unta ka tirsadaas iyo iskuul wala may buu oo may buu dadka dah ku saaran bidinillaahi alkariim موالكن هجابيان ولبا وان ما نغان إلهي سبحانه وتعالى معمولكي أو هبي إيو تجمع لرئيس جيك ما يبغى قدون سيو هاي تقدر العقدة ميلون حسين قلها دول هاينون وهرونت كونفر قلبه سوماليا دابشيل جروب إيدي يدان ما سنتين كنت ما يبغى فرحت وينين كدابشيل جروب هان إنه المناسبة دون جيك ونك قدون سيو هاينا العقدة راس $5,000 أو شركة دابشيل إنك ترجع لي أما إنك داقدي maama Faadumo Aadan Cali oo runtii shalay iyo daraad baraha bulshada la hadhiki saasoo kale ma mahadnaqaan raggi ama teamki suurta gali in ummadda Soomaaliyeed ama muxsiniinta hindhoojo ha ka jeedaan maamadan in lagu arag baraha bulshada dadka dadaalkaas jeesiyaan mahadnaqaan marka xigtana ma mahadnaqaan shirkadda Dahabshiil Group maamulka sarad Abdirashiid Maxamed Saciid la ku bilaabo ilaa iyo koonfurta iyo bartamaha maamulaha Umar Xasan Yola iyo Sheikh Ibrahim Ali Abdi maamulaha Koonfur Galbeed Dahabshiil Group iyo teamki ku wada shaqeeyay runtii shalay inta ku tabni maamada guriga yeesay dadka seediya ka jari aniyo Muxdiin duruufa ku muuqati dad muxsiniin ah dukaan meelan ka dhisaayeen Dahabshiil may baa gorotay madan dukaankaas wala ka bilaabo faday ka furufadi runtii eeda aan ka mahadnaqaan Dahabshiil Group ahaan iyo teamki ku qeyb qaaday sida saxafiyiintan oo hortaan surun oo bulshada tusi maamadaas eedan ma hasantiin xildhibaan hore Idris Cabdi Dhakhtar iyo Aadan Abaari oo kamid ah dadka mas'uuliyiinta ah ee u istaagay ololaha lagu caawinayo maama Faadumo ayaa ka mahadceliyay taageerada Dahabshiil Group ee hooyadan tabaalaysan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta in maxal lahaa shirkadii Dahabshiil qayb weyn ay ka qaadato taakuleyntii walaasheen maamadeen Faadumo Aadan Cali
oo runtii ay u gurmadeen dad badan qayb weyn maanta waxaa ka qaatay oo lacag gaaraysa $5,000 oo runtii ah inay ganacsi ku bilowdaa waxaa siiyey shirkadda Dahabshiil runtii waa wax lagu daydo waay mar walbaba waxay u taagan yihiin Dahabshiil iyo Samtel dhowr jeer ani waxaan ka qayb galay xafladahoodii xilligii xataa oo maxaa la dhahay dadka ay siin jireen abaalmarino qayb weyn ay ka qaateen markaan aad iyo aadaan maxaa la dhahay ugu mahad celinayaa ilaahay ka soko waxa waa iyagana mahad gaar ay leeyihiin waxaana noo keenay awooddan waxa iskale ilaahay maxaa la qoftaasoo hadashay oo dhahday su'aashu markuu wariyaha weydiiyey maxaad inta maxaa la dhagxaantan u qaadaysaa la waxay ku jawaabtay intaan tuugsan lahaa maxaa la caruura ii joogta i waayeel guriga jiifa ii jooga maxaa la inaan shaqaystay dhahday ilaahay khayr ha siiyo ayadana dadkii taakulentan dhiibay oo maanta lacagtan aad u badan waxa waaye waa ku dayasho mudan yihiin in ayagana la abaalmariyo waaye maxaa la shahaado sharaf la siiyo haddaan nahay dadkii siyaasiyiintii dalka joogay marka hadalkayga waxaan ku soo koobaa alxamdulilah alshukru lilah aad iyo aaday u mahadsan yihiin بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aad baad u mahadsantihiin bahda saxaafadda guud ahaan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa shirkadda Dahabshiil Group oo maanta inoogu yeertay in maamadii dhibaataysneed ee duruufta ka muuqatay inay maanta u garatay inay siiso lacagtaasoo cadadeeda maamulka shirkaddu ay inoo sheegeen oo taasoo ah $5,000 iminkana ay ku hool jiraan in intaa iyo in ka badan ay insha Allah ugu maqan yihiin taasoo ah dabcan shirkadda markay wax bixiso waxay leedahay shaqaale waxay leedahay maamul dabcan duruufta maamada iyo marka loo sii gudbiyo shirkadda Dahabshiil waxaan ka rajeyn doonaa ilaahay idinkii intan iyo in ka badan inay maamada guddoonsiiso dabcan maalmahan oo dhan maamada waxaan ugu jirnay in loo gurmado waxaan aad u amaanayaa wiilashii markii hore soo bandhigay si gaar ah xafladda maanta aan joogno shirkadda Dahabshiil shalay waxay noogu timid guriga maamada annaga hawl ka hayna qiimeyn bay sameeyeen isla maanta way u soo jawaabeen waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin sharaf iyo karaamo maamulka guud ahaan anoon kala saaraynin team Somtel iyo team Dahabshiilba dabcan isla shalay waxaan aragnay Somtel inay u keentay simkaar ilaa iyo $20,000 lacag qaadaya marka waxaan dhihi karnaa wax aad loogu farxo aad u mahadsantihiin waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gobonimo aad baad u mahadsantihiin